السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفانتاستيك رياكشن waxaan ilaahay ku soo dhawaada waa kanaalkii waa hoygiini waa falaqintii sportska iyo kala iibsiga suuqa ciyaaraha ayaa dhigi karnaa waaw ciyaaruhu caadi ma ahan suuqa kala iibsiga wax yar bowdaga ayaa horaata laakiin dib buu soo laba laabtayo suuqii dib buu si kacaya samada ayuu si alelaya wow iyo war kale badan haddana ugu cusub tahay saaxiib sare waxa ku leenahay subscribe kaliya laawin adigoo naga raali ah lagana siraasi wixii ra'yigaadana comment inuu soo qori kartaa waxaan ilaahay welcome meel kastoo dunida ka jirtaan waxaan ilaahay waa hoygii sportska iyo falaqantii suuqa kala iibsiga ciyaaraha wow aku bilaabo warar cusub oo dheeraad ayaa sheegayo inuu xidiga CR7 Cristiano Ronaldo dib u tagi doono kooxda Sheraton Man United oo u wareegi doono dhanka iyo Blues Chelsea ayaa la sheegayaa qodobadaas oo dheeraad ayaa dib nooga soo kordhay waayo CR7 wuxuu taagan yahay ani khamiisley ina u safta qalad waayo ana u jeedo 4-3 oo waaweynka ciyaarayaan waa UEFA Champions League waa koobka uu jeclaade waa koobko qamsa waa qamiis dhijir saaxiibkay ayuu taagan yahay ma ka baaqan karo xanuun buu ugu hayaa ka baaqdo United maadaama taageeradii ay waan jeclay iga raali ahaada 100% aniga waa ciidamada ayaan igu tuura taagan yahay dhanka Chelsea ay wareega markii oo hor loo dhahay inuu ku wareega laga yaabaa kooxda FC Bayern Munchen laakiin Bayern ayaa iska diiday iyo xidigeeda Hassan Salah Hamidovich oo sala socono kala iibsiga suuqa uga mas'uul Bayern Munich ayaa dhigi kara marka duqa uu isdhiibay bil akhir wuxuu taagan yahay Chelsea dhankaas iyo Blues ayuu taagan yahay Chelsea iyo Tuchel ayaa isku dhiibaa waa gartay horta hadduu United ka tago waa mid u wanaagsan oo maadaama sanadkiisii dambe uu jiray inuu saacan qamiis soo safto horta ceeb ku waay ninka odaga United-na waa udan inuu Ronaldo ka tago waxa dhihi karaa United hadda ayay dhisaysaa kooxda inay laacibin iyo Ingiriis isfahansan oo hal mar isku action oo isku macaan ah inay soo wada saartaan haddana ugu jirto oo maslaxadda United waa dhihi kara taasna inuu Ronaldo baxo waayo labada dhanba waxa u arkaa maslaxad inay u kala sugan tahay inay kala danaystaan waayo waxa dhihi kara Cristiano Ronaldo hadda waa laacib duqoobay lagu dhisma karo kooxda yani min jadid loo asaasayo waayo afdal waxa ay inuu iska tago Chelsea oo iska sii dhameystirto meelihiisa laakiin boqolkiiba aniga ka shakhsi ahaan hadda ahay fantastic waxa qabaa Ronaldo inay anficayso Bayern Munich waayo maxay tahay horyaalka Bundesliga oo la soconaa waa horyaal degan oo waalin lahayn marka awoodiisa wuxuu wada saari lahaa dhanka iyo Champions League waa gartay waa qodobkii Ronaldo saasade uu gudbo waxa uu wareega qodobka kaleento oo xidiga ka shariyeen waa Lewandowski Roberto Lewandowski waxa la sheegayaa in Barcelona si zaid u doonayso ay gaartay 40 milyan balse Bayern ayaa taagan fursad kugu macad waayo maadaama oo Lewandowski rabo Barcelona Lewandowski rabto wuxuu Bayern xawileysa markay inay ka dhafaadeysto waa taqaan fariiq Bavaria caadi ma ahan waa Bayern Munich waa maskax socoto waa koox aan hore ciidamada u tuuray aan wadaleysa karin ayaa dhigi kara marka Bayern Munich waxa laga yaabaa inay fursad fiican ugu soo baxdo meeshaas oo Barcelona waxa laga yaabaa inay ku dartay 60 gaarto amba 50 isbuucda soo socda kulli suuqa sansi ah ma oo Lewandowski wuxuu taagan yahay ku ziyano berdal anigu waa baxay taagan yahay dhanka iyo Barcelona ayaa rabaa waa gartay aksi gudbo waa xidigana saddexaad oo liiska noogu jiro waa Rafinha xidiga la isku haysto laba dhinac la isku haysto yaa system taqanahay waxa isku haysto Chelsea oo dhinaca iyo Barcelona dhinaca isbuuci hore iyo labadii bari hore waxa dhigay Chelsea ayaa u dhow afka u saaran laakiin laacibka ayaa diidan ayaa taagan dhanka iyo Catalonia ayaa rabaa kooxda Blaugrana ee FC Barca ayaa rabaa inay u safto garoonka Camp Nou ayaa rabaa inay ka ciyaaro taagan yahay xidiga Rafinha laakiin meeshaas ladiesna waxay rabtaa inay ka iibiso Chelsea laakiin laacibkan wuxuu doortooha Barca marka u baday inuu awood ku guuleysan doono bil akhir laacibka oo dhanka iyo waxa aadi doono FC Barcelona ee Barca ku guuleysan doonto saacadaha soo socda doona kala noqdo
iyadoo la sugayo isbuucan dhexdiisa inay Barca labada xidig soo kala qaateen waa Erikson iyo waa xidigii balka Spain Alonso iyo waxa la soo bandhigi rabaa xidiga laga soo gaday AC Milan Frank Kise boqol ayaa xuma wallahi صراحة Kise laعب sare wallahi waa haata dhikara meel walba tagdo guul ay ku rajaynaya waa لاعب الأكفاري واحد دقيقة وديلو dalka Ivory Coast una ciyaari jiray kooxdiisii hore AC Milan oo uga tagay daruuf awgeed lacagta inay badiyaan diideen ayaa dhici karaa waaxid dig nus oo kaamil ah dhex burburiya caadiyan waa ma kale ay saxsanaa ninkaas caadi ma waa shaqeynaa ku dhaasay Frankiisi iga xirleyskaas hadda u wareega dhanka iyo Serie A-da Inter ayaa dib u soo ceshatay xidigeedii Lukaku al-Bulldozer Belgique dib ay u laabtay markoo sanadkii hore waxba ka tiri waayay kooxda Chelsea iyo tababarada Tuchel oo imaamada ugu dhacday xagga ayaa taagan dib waxa uu si laabanaa kooxdii imaamadii soo celisay ayaa leeyahay imaamadii soo celiyay waa Lukaku kooxda ay jaarkayeen AC Milan waxay idin ku guuleysatay inay hesho xidigii Liverpool waa bitgolki waaxdigii maskiinka iska ahay daqiiqada soo gali hadda rabta soo galin kiya karama yaqaan madaxnu ma yaqaan waa origi ayaa dhikra origi adigana horumar wanaagsan iyo gul wacan maadaama uu ciyaaraysid kooxda oo malakiga labaad oo soo daba xigto atoriyasha Madrid kooxda soo daba joogto waa AC Milan oo dib u soo laabatay iyo isla AC Milan oo idin ku guuleysatay inay u jadiidiso labada Real oo hogaamiyalku ah waa Paolo Maldini xidigeedii hore waa ibn Nadi iyo Masara oo dib loogu daray jadiidin aqdi loo sameeyay oo howshooda sii wadoono maadaama ay ku guuleysteen horyaalka Serie A sanadka soo dhaafay ayaa dhig karaa sanadka Serie A soo socdo kala kacsan yahay Dybala ayaa taagan ma Inter ba aada Milan ba aada markuu Juve ka tagay Juve in howsheeda ay wata Di Maria iyo rag kale badan ay ku guuleystay horyaalka Serie A sanadka soo socdo iyo ku dhaafinayo xilay mid walba caalamka joogto waa shidan yahay laakiin si waxa jeclahay inay Milan si ay doonto koobka Serie A-da ay xidigada labaad qaada doonto oo Allah ka raali noqdo AC Milano dhanka iyo Premier League waa tala soconabo Liverpool zaman bay isabaysay waa xidigii qaatay nuno waa kooxda City ay qaadatay Baldoski labaad oo jijibiye Master Goal Betty Goal watay qaadatay waa Honda Holland magac xun ku qaaday Holland watay qaadatay iyo qaar kale badan waxa sugayna kooxda Malakiyina waa tala socotiin maadaama Malaki oo Malak iska yahay Al-Madridista yahay oo garoonkeedana yahay Santiago Bernabeu magac laga maskiin maana ba Al-Malaki Allah magayda hadda maqasho aba waan haysaa ku dhaashay shicaarkaas kada ujeedo qalas waa ma championka absanayo adigoo dad inta ku jirta ma championka meel ku baqay war anaka inta ku jirna waa kasi qaxna ku dhaasayno arfa salaam ayaa ku dhahay marka aragto kooxda Malaki waa Madrid ayaa idin ku guuleystay xidiga oo qadka dhaxa u ciyaaro oo naadiga Monaco laga soo gaday oo inaba caadi ahayn ayaa dhikra Madrid waxay ku socotaa khudwad taabita waayo lil mustaqbal maadaama Casemiro Modric Kroos intaas oo ay duqowaan ayaa Camavinga iyo laacibin dhaxa ayaa dib loo dhisay marka Florentino Perez waa nin maskax guureysay saaxib wuxuuna iska raacday Marcelo ayaa la dhahay qadkaada oo ku dhamaaday waqtiga dhamay saaxib u shaqo tag magaalada ee ana la gooynine ayaa dhikra waa suuqi kala iibsiga iyo fantastic reaction asxaabteydii idinkana yaa la iska baqelinaysa subscribe-ka way waanu dhirigelin hadda tiin asxaabta sportska leegana waa si raacsi kartiin si oo aktarnaas oo gaaro wixii ra'yigaana kuma jiro soo qor share garantan waa si share garay kartaa soo asxaabada u gaaro waa fahdi fantastic isku xiran iyo habeenkii